بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى ما هذا سكله وحنقول أحجرني عشرين دروس في التوحيد على ضوء الكتاب والسنة. وحين مريسي باب كي سدحات وأها العبادة. عبادة مركا قرما قفك ونقون كرا الضون والله أرن كرا وعبدي مركا سدح قيبود بلو قيبي سدح دب إن شاء الله. iyo quraanka ku tilmaamaya cabuudiyadii dad ku tilmaamayo arimahaas oo dhan waxa weeyaan casharka darsinka dhaxdiisa kaga bogan doonaa haduu Ilaahay idmo marka waa sida insha Allah guda gal casharka bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu yiri al cibaadatu hiya waxa weeyaan qaayatu tadallul waxa weey istuleyn meeshii ugu fogeyd oo la gaaro weeyaan yoolka ugu fogaa oo istuleyn meeshii ugu fogeyd weeye ugu sareysay والخضوع يهجان سميت أي واحد لجوا أن يدعنا المرء قفك إنه يهجان سما لعلاء أحد ساكسر يهجان سما وقلبتي وكأود بدن أما قلبت أحد كسبوا لي هاي لعلاء أحد وحاول ساكسر لأجل علاء أحد ساكسر أوجي وقلبته موقت قلبت أحد كاس يأود أحد كاس يهجان سما ثم أنت كدب ينزل وجود الله وسجع عن حريته وحاول مدح بناني ديسه حريتي سيده واستقلاله مدح بنانيس ويترك وكتغ إزاء هرتيس كل المقاومة كهر إمادو دن والعصيان iyo caasino dhan inuu ka tago wayanqaad uu hogaansamo loo asaga inqiyaadan hogaansamid wa amsilatu dalika inta wixii lamid ba cibaada la yiraahdaa wir marka lambarka koobaad wuxuu yiri yuqaal waxa leeyahay al-insaan al-mamluuk insaanka la leeyahay al-maghlub ala amrihi amarkiisana qaalibka laga yahay عبدا أضم بالي هذا لأنه وحيل خضع وحود اللوبي خضع وهو كان سمي وذل وود اللوبي لغير عندنا سجاحين واجي النبي عليه الصلاة والسلام مركب حجرتي إس أدونس واحد يرى هذا وضدك وحاول سد ظلم من والسكو أدونس جري سحقنا وكو إيمان جت ومركا وحي قال هذا مركا استعمال جت إسلام كوا قبي وحال قصر ربي وكلية ضدك اللي وقفت متغنى مرحلة الدجال كأما الدجال كفرها السكو هيو wixii gacanta lagu soo dhigay baa la adoonsan jiray ayagana inta badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala tawba u waafijin jiray oo khayr bay u noqon jirtay adoonsiga la adoonsanayo laakiin dadkii jaahilada xilliga joogay waxa weeyaan siyaabo badan bay soo adoonsan jireen oo Allah subhanahu wa ta'ala uusan ogolayn waxa muslimiinta loogu baneeyay waxa la yiraahdo mukafaatul mithli bay ahayd oo adiga ku adoonsanayaan oo dadka muslimka ay marka ka qabsadaan way adoonsanayaan marka in ayagana la adoonsan way taas marka cadaalad noqon mayso waxa marka maxay noqotay mukafaatul mithli bay noqotay in wixii ay sameeyeen lagu sameeyo قال الله تعالى لسر وحوري ثم انت كدب ارسلنا waxaan dirnay Muusa wa akhaw Haaruna iyo walaalkii Haarun biaayatina ayadaha la dirnay usuldaad iyo xujo oo muubin cad baan siinay ila fircaun xaqi baa loo diray oo malaayihi iyo madaxweyntii fastakbaru wa iskibriyeen oo kaanu waxay ahaayeen qowm dad caaliin isla sareeya وأن أقولين انقياد عن لهين والنبي لوضع النبي إيو الله سبحانه وتعالى إنه كان سمان أنا دونين فقالوا واحد ردنا أن نؤمن وحنربيننا لبشرين لبا الروح ومثلنا إنك كلاء وقومهما قوم كذا لنا إنك أيهن عابدون كواي عابديو مركا هلكن waxaa ku jira cilmi baa ku jira hadda banu Israa'iil waxa la ogyahay nimanka qabdiinta ah mana u sujuudi jirin mana u rukuuci jirin waxna uma gowraci jirin laakiin waxa weeyaan cubuudiyada quraanku tilmaamayo waa tii hadda aan ka hadlaynayo waa dad inta la qasbay isduleeyay oo hoggaansamay marka taa weeye marka tan laga hadlayo marka waxay noqdeen cubaad waxa weeyaan ligeyr la way noqdeen dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala qeyrkii adoomo u noqday ayagoo marka ma taqaan dulli iyo dulmi ay sameeyeen ay sababtu iska lahaydo ayagoo sareeya waxa weeyaan 400 sano taqriiban ka talinay dhulka Masar bay inxiraaf iyo waxa weey qalooci diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka leexdeen ba sababteeda ahayd in heerka ay gaaraan marka ficil kasta natiijo ka dhalanaysa waqala ta'ala lisra'iil wa tilka taas ni'mo weeye tamunha aad galad sheeganaysa calay dushayda aan cabadta goorta aad adoonsatay bani Israa'iil aad adoonsatay bay ka dhalatay galad sheegashada adigu galad sheeganayso sababtan waxay ahayd nabiyullaahi Muusa calayhi salaam waayihii wuxuu dhashay baa la yiri ay gowracayeen wiilasha
nimankan shayaadiinta ah oo qibdiyiinta ay wiilasha gowracayeen marka hooyadiisa waxay sanduuq bay ku riday marka webigii bay ku dartay yooman min ayaan bay halmaantay marka sidaa daraaddeed sanduuqi waxaa soo qaaday baa layidhi nimankii faraacinada ahaa gurigii fircoon baa la keenay calaa kulli xaal waa sheeko jirta marka gurigii fircoon buu ku koray marka islaantii fircoon baa waxay tiri waa korsanaya iida inankan sidii baa ilaahay subxaana watacaala qadaray inuu fircoon ninkii halaagiisa sabab u noqon lahaa oo gurigiis ku koro waxay ku tusinaysaa tabaryaraanta ibni aadanka inuusan qiimi lahayn wuxuu ilaahay doonaya inuusan hor istaagi karin ilmihii asaga halaagiisa sabab u noqon lahaa oo naftiisa uu ku waayn lahaa oo boqortooyadiisa uu ku waayn lahaa baa gurigiisu ku korsaday marka cajaa'ib bay leedahay maogta waa cilmi ilaahay in ilaahay subxaana watacaala ay cidna hor istaagi karin baa halkaa ka garanaysa marka guriga maadaama ku korsaday nabiyullaahi muusa calayhi salaam maalmaha ka mid ah nin kollay nimanka israa'iiliyiinta ah oo mid kaloo qibdi uu raranaya buu u hiliyey 2 marxaladood bay ahayd marxaladii ugu dambeysay buu ninkii mataqaanaa marxaladii koowaad buu ninkii feeray ninkii marka waa saasuu ku dhintay qibdiga ahaa marxaladii labaad oo ka furfur ninkii isirey nin doqon buu ahaa sidii qur-aanka tilmaamayo marka nin iska nacas buu iska ahaa qur-aankaabaa inoo sheegayo oo mataqaanaa ka warramaya arrintan marxaladan dhex martay nabiyullaahi muuse iyo sidii raggaa u kala furfuray inuu u kala reebo damcay marka nabiyullaahi muuse calayhi salaam markaasuu carray oo madyan tagay uu soo noqday oo yimid markaan uu yimid weeyaan markuu fircoon uu odhanayo moogta waxbaan ku tarnay marka waa kan la odhanaya waa facalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin waxaa weeyaan waxaad samaysay ficiladaadii adoo ah kaafiriinta ka mid bimacnaa waxaa weeyaan nicmadii aan kuu galnay iyo wanaagga aan kuu samaynay nin dafiri baa tahay kufriga waxaa weeya waa nicamka oo la qaryaba marka taasay sabab tahay aayadda ka dambeysay qaybta labaad waxaa weeyaan wakadalika saas oo kale idaa ataaca almaru axad qofka hadduu ateeco axadan hayruhu axadan isaga ahayn mukhtaaran asoo dooranayo wactaqada uu rumeeyo awaamirtiisa waajibatan waajib inay ku tahay caleyhi dushiisa faqad cabadahu waa caabuday liannahu waxaa yeele dalla wuxuu u dulloobay wakhadaca u hogaansamay liqayrihi u hogaansamay lahu isaga biikhtiyaari madax banaanidiisa hadduu marka yidhaahdo amar dowla waa muteec oo qofku wuxuu mataqaanaa halkaa wixii ka socdo dhanba uu iskala boodaalaysto waxa weeyaan uusan oran waxaan ilaahay raalli ma ka yahay mise kama aha qof wuxuu noqonayaa ku dulloobay ikhtiyaarkiisa cidi ay qasbin wuu noqonaya marka addoon ligayr illaahi buu noqonaya qaala allahu tacaala alisri wuxuu yidhi alam axad ilaykum miyaana idinla ballamin yaa banii aadamay ilma aadamow alaa tacbudu shaydaana shaydaanka inaadan caabudin inuu shaydaanka lakum adinka caduwun col buu idinku yahay mubiinun colnimadiisana ayadahay waan icbuduunii miyaana idinkula ballamin isoo caabuda haadaa cibaadadaas waxay tahay siraadun waddo mustaqiiman toosan oo ilaahay lagu gaarayo halkan allah subxana watacaala wuxuu inoo tilmaamayaa shaydaanku inuu cadow yahay oo sababta cadowtooyada keenaysana waxaa weeye baa layidhi markii aadam u sujuud layidhi sujuudi diiday ilaahay subxana watacaala waxaa weeyaan in asaga iyo wixii raaca ay naar gelayaan buu u ballan qaaday asagana wuxuu ballan qaaday aadam inuu caruurtiisa luminayo oo ay naar la gelayaan oo adduunyada waxyaalaha ugu horreeya ku luminayana ay tahay inuu adduunyada kusii jeediyo oo ilaahay iyo diintiisii iyo aakhiradii buu ka jeediyo oo wuxuu yidhi la usayinana lahum fi lardi walaa uqwiyanahum ajmaciin arladaasaan u qurxinayaa aan ku jeedinayaa waxaa weeyaan dhammaantoodna waa luminayaa buu yidhi waa marka qur-aanka tilmaamaya allah subxana watacaala uu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis malay ka ahayd waayaha uu lahaa waa luminaya malay ka ahayd laakiinse xaqiiqay noqotay sidii bay dhab u noqotay oo malihiisa u rumoobay dadkii aqlabiyaddii waa raaceen marka cibaadatu ibliis waxaa weeyaan waa daacada weeyaan waa adoo ibliiska adeecayo ibliis miyuu ku imanaya ibliis u sujuud mataqaanaa meel uu taagan yahay qof ugu sujuudaya ma jirto ibliis meel taaganoo xoolo loo gowracayo ama loo rukuucayo ama loo soomayana ma arkaysa laakiinse dad baa u hadlaya taas waa ina fahantaa ibliis dad buu ciidan buu leeyahay junuud buu leeyahay junuudda saafkiisa ku hadlaysa marka hadduu mar axadka ilaahay subxaana watacaala wuxuusan raalli ka ahayn dadka ugu yeeraya waxaa weeyaan min ducaati ibliis buu ka mid yahay waana ibliis insi ah weeyaan sababtoo qofka hadduu u yeeraya dadku leeyahay qabriga hala baryo
ha laga ciid qaato hadduu leeyahay, ha lagu dawaafo hadduu oranayo, waa nin ibliis u shaqaynaya wey. qofka ateeca oo waxa ka dhageystana waa nin ibliis caabudi buu noqonaya. hadduu yidhahdo xeerbeegtiga ha lagu dhaqmo oo dimuqraadiyada waa sax, waa fiican tahay, shareecada khilaafi maysa, waa okay kan weeye hala qaato, iyo xeerbeegtiga xeerjajabka iyo balaayada soomaalida ku dhaqanto. marka waxaa weeyaan nin mataqaanaa shaydaan caabuday buu noqonayaa qofka kaa ateeco oo dabagala. marka ibliiska ha u malayn inuu asaga shaar kuusoo gashanaye, waxaa kuu imanaya ninaad taqaanad hebel hebel leedahay baa kuu imanaya oo ibliiskii u shaqaynayo. وقال تعالى ليسري وحير احشروا waxaad kulmisaan aladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey iyo aswaajuhum iyo noocyadoodii kulmiya wamaa kaanuu yacbuduuna iyo wixii caabudi jireen. aswaajkan haddeer dumar laga hadlay maye, waxaa laga hadlayaa dadkii isku nooca ahaa oo waxa weeyaan isbahaysan jiray oo isku bahaysan jiray waxa weeyaan nooc kufri oo san Allah subhanahu wa ta'ala raali ka ahayd. wamaa kaanuu yacbuduuna wixii caabudi jireen la kulmiya min duuni illaahi Allah subhanahu wa ta'ala ka soo fahduuhum ku hanuuniya ilaa siraadil jaxiim, wadada lagu hoogo oo jaxiima ku toosiya waxa iyaga markaa kasbadeen. waqifuuhum istaajiya innahum iyaga mas-uuluun, waa la su-aalayaa oo maalintaas waa la wareysanayaa. kibirkii adduunyada lagu joogay iyo batraankii baa la weydiinayaa meeluu aaday. waxaa lagu oranayaa maa lakum maxay idinkugu ahaatayoo laa tanaasaruun isugu hillan weydeen. warwaagii adduunka aad joogtay aniga ree hebel baan ahay baa xabadka la garaacanayay oo waxa weeyaan addoommada ilaahay lagu tumanayay oo dhiigooda la banaysanayay oo cirdigooda la banaysanayay. war haddeer mee wixii xagee qabtay, xagee ka baxeen? wuxuu yidhi Allah subhanahu wa ta'ala bal iska dhaafum ayaga alyawma maanta mustaslimuuna, waa isdhiibeen, maanta waa isdhiibeen. konton dowladood aan isu nimid aan nahay, isu midoobay baan nahay iyo hebla heblaay. waxaa sheekadaas halkaas waa ma shaqaynayso, meesha cadaalad baa ka shaqaynaysa. marka wa aqbala bacduhum waxaa kasoo horjoosta bacduhum qaarkood calaa bacdin qaar kale tasaa'aluun ayagoo isweydiinaya, ayagoo iswareysanaya. maadaama adduunyadii la noolaa oo Allah subhanahu wa ta'ala qur-aanka uu ku yiri tacaarafuuna baynahum, waa isgaranayaan oo adduunkii lisla joogay oo haddeerna ay natiijo xun noqotay. waxay isweydiinayaan marka maxaa sababay. ma su-aasha marka meesha taalla xilliga la isweydiiyana waxa iyaga markaa faa'iido u keenaysaa ma jirto. marka waxay oranayaan oo isweydiinayaan qaalu waxay yiraahdeen nimanka raaciyada ahaa inakum adinku kuntum waxaad ahaydeen dadkii bulshadii weeyaan oo beenta loo sheegay oo la siray. inakum adinku kuntum waxaad ahaydeen ta'tuuna kuwa nooga yimaada canil yamiin dhanka midig. marka Allah subhanahu wa ta'ala quraanku wuxuu noo tilmaamayaa in ay dadka lumin doonaan, laakiin si dambigooda iyo dambi loogu daray kuwana aan dambi laga dhimin. liyaxmilu awsaarahum kaamilatan yawma alqiyaamati wa min awsaari alladina yudilluunahum bighayri cilmin. dambigoodana waa xambaaranayaan, ama wadaad ha noqdo dadka been u sheegaya, ama nin xaakim oo wax maamulaya ha noqdo. dambigoodana waa xambaaranaya, kii dadkan waa loogu daraya. kuwa lumi oo dabagalayna dambigooda waxba laga nusqaamin maayo. marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qaalu waxay yiraahdeen inakum adinka kuntum waxaad ahaydeen ta'tuuna canil yamiin ku xoog noo isticmaala, baad midigta nooga yimaada. qaaluu waxay yiraahdeen nimankii ay eedeynayeen bal lam takuunu mu'miniin, adinkaan mu'miniin ahayn. sababtoo insaanka awood uma laha inuu iimaanka ilaahay ku siiyey uu kaa qaado. waxa uu karo awood ilaahay kaliya waxa inuu ku dilo kama badin karayaba, istidaacadiisa intaasay ku xiran tahay. laakiinse adaa u sacbutumay, adaa raacay, adaa moogta u shirbay, dee waa ku kaa. marka Allah subhanahu wa ta'ala marka wuxuu yiri afwan الله سبحانه وتعالى وحير إن ير إن كان الجواب عفر هذا مركا الله سبحانه وتعالى وحيري وحير الدين أذن كان مؤمنين أهين وما كان لنا منا نص ناوي وما كان وما أهنا لنا أنك عليكم بشيء من سلطان وحجة بل إسكنا كنتم هذا هيدا قوم ضاقين ضد وهذا طواقيد نقضي وقواقي وكبر بهذا هيدا كبر كيني بقى وحو كاني إن موقت هالكاو إذا مريو مركا قتر وي موقت وقال تعالى ليسري وحيري الله سبحانه وتعالى وحيري اتخذوا وحكي شيئا أحبارهم علماء دي وأكو علمي لو لبدي دتك علمي لبدي ويان وأحبارهم ورهبانهم إيو دي متقنا عبادة بدنا وزهاد أها با وحكي شيئا بيقول الله سبحانه وتعالى أربابا ربية من دون الله الله كسو أي ربي كي شيئا مركا meesha tan marka waa culimo wax la sheegayo oo rabbiga laga yeeshay baa la leeyahay. taxliilkii tahriimkii baana laga qaatay, waxay xarimaana lama weydiinin, waxay xalaalayana lama weydiinin. ilaahay ma ogol yahay, raali ma ka yahay,
maya midna toona laysma oran bal ka waran ninkii shareecada iyo qawaaniinta ka qaatay gaal aanba ilaahay subxaana watacaala rumaysnayn ka war muxuu xaalkiisa noqonayaa haddii shiiq iyo wadaad caabid ah oo sawmaco fadhiya lagu gaaloobay adeecid la adeecay oo ilaahay subxaana watacaala macaasidiisa lagu adeecay haddii lagu gaaloobay bal midka maanta gaal calmaani ah oon ilaahay rumaysnayn oo adduunkanba hadduu doono oranaya dadkanba waxa weeyaan waa daayar bay ka yimaadeen adduunkan oo dabeecad baa keentay sidaaba la soo taagan ninka shareecada iyo qawaaniinta ka qaatay oo raalliga ku oo halkaas la soo taagan oo ku faanaya muxuu xaalkiisa noqonayaa in wax isweydiina loo baahan yahay jaanis baan haysanaa aan ku fikiri karno marka maskaxda ha shaqaysan leeyahay marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri والمسيح ابن مريم مسيح إن مريم وعابدين علماء مركا عبادة أرباب الله جيش اللي لو مسجود لو مر ركوعين أبو علي وحوري لم يسجدوا ولم يركعوا وما يسجودين ما أنا الركوعين بير هاي فاستنصحوا الرجال ركب بين الساحة كالضلبين هاي نصيحة ويدين ومسجود ومر ركوعين لكن هو نستحيان بين الساحة إلهي سبحانه وتعالى صار لك عين مركا الكاس إسلام مريم لكن النبي الله عيسى عليه السلام سيصدح إله مدي هاي بيرهدين خلادات وين بهالكا كقالين وكدونيد قابك أربابت الله علماء أربابت الله يشي النبي الله عيسى عليه السلام والنبي الله عيسى سووا وحي أهيد بقى من باب العبادة كأمن سنايين وحي أمن سدح إلهين ومديه وحيد الله سبحانه وتعالى قنانتك وما أمروا لما أمرين إلا ليعبدوا إن عابدان مويان إله واحد إله كليا لا إله إلا حق لو عبد مجرى إلا هو الله مويان سبحانه الله بكنا سهل عما يشركون وحي إلا وذا جنيان marka insha Allah qodobka saddexaad baan ka sii bilaabaya 10 ka soo socda oo bilaa tawfiiq isma dhaafno